السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم وناكسن سود ودا صحاوي وبرنامج كيني صادر انت سود وادو سبسكرايب صار اليوتيوب كان مقالك الله جري دواريرة ما انتو waxaan ka hadlaynaa saalaasha kulanka derbiga ee adag ee Al-Nasri fis Real oo ka wada dhisan hal xaafad taasoo ah xaafadda Dayax. kulanka waa adag yahay waa laba naadi xifaltamaan saadaashana waa dhib badan tahay laakiin qof walba wuxuu leeyahay choice. aniga teeda waxaan maanta u saadaalinayaa naadiga Al-Nasri waxaan ugu saadaalinayaa inay ku badin doonto 2-0 lawi ever haddii laba ka badatana 3-1 ama lawi ever ay ku badin doonto Al-Nasri sababtoo ah weeryahanada ay wadato Al-Nasri gool lagama celin karo. marka inkastoo ay Daryeel soo wareegtay ciyaaryahan dhako yani wuxuu ciyaar doonaa 5 saan filayo marka xoogaa macquul laakiin ana waxaan siinaa in 3-1 ay ku dhamaan doonto ama lawi ever guush ku raaci doonto Al-Nasri sidaana uu soo gudbi doonto semifinalka horyaalkan. waxa kale oo xusid mudan in Al-Nasri ay ayaamahan ay waday training ama tababar oo almeetay ku qaadanayeen si ay kulankan isku diyaariyaan iyo kulamada kale. marka guusha waxa urajeenaa insha Allah Al-Nasri shayna waxa bas ka raacay Duufaan horaan guusha Duufaan wax weerar ah ma hayso kaliya boonay waa difaac iyo bug maana wax weerar ah oo laga cabsado ma hayso. haddii weerar ay helaan Duufaan way soo bixleen. marka Duufaan bas ka raacday Banaadir Hambalyo semifinalka waxa iska xaadiriyay Banaadir iyo Al-Miftaax. maanta waxaan sugaynaa Al-Nasri naadiga kale waxay tahay naadiga Bilbaasi. marka saddexdaas kooxood dad iska xaadirisay semifinalka maanta la sugaa Al-Nasri iyo Daryeel midkii soo baxo. haddii ay soo baxdo Al-Nasri waxay ku dhici doontaa Banaadir oo shalay soo baxday. kulankan waa la wada ogyahay waa Miftaax iyo Bilbaasi. سنة وتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.